agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer ayaa deeq raashin kala wareegay Jamaal Salebaan Xaaji Yaasiin waxaana deeqdan ay isugu jirtay bariis, saliid iyo daqiiqe waxaana soo baxsaday qof muxsin oo ku nool dalka Imaaraadka Carabta. agaasimaha cisbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim oo ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay u mahadnaqay cid kasto gacan ka geysatay deeqdani waxaana uu sheegay inay ka faa'iideysan doonaan dadka bukaanka ee jiifa cisbitaalka magaalada Burco. Jamaal وينقل جوجا المسلمان حاجي ياسين iyo Mukhtaar oo maanta cisbitaalka Burco ku wareejinay hadii la yiraahdo deeq raashina deeqdaas oo ka timi walaalkeen oo Imaaraado muxsina deeqdaas oo ka kooban 100 kiish oo daqiiqa iyo 100 kiish oo bariisa iyo saliid runtii aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa walaalkeena muxsinka hay maanta deeqdana soo gaarsiiyay oo cisbitaalkuna baahi u qabay cisbitaalkan waxa lagu daweeyaa dadka xanuunsanaya sida dadka dhimirka qaba sida dadka xanuunada kale oo dhan qaba baahi weyn oo qabnay raashinkan marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay halkaad ka soo saartay wax khayr qabaha kuugu bedelo ajarkeedana ha ku siiyo waxa kale oo mahadnaqaynaa ilma Salebaan Xaaji Yaasiin oo iyaguna deeqdan noo soo qaaday baan iyaguna leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Jamaal Salebaan Xaaji Yaasiin oo isagu ka wakiilaha muxsinka soo bixiyay deeqdan raashinka ayaa ka warramay noocyada ay ka kooban tahay raashinkani. marka maanta waxaan ku wareejinaa raashin dhan sida agaasimu uu sheegay 100 bariisa iyo 100 daqiiqa iyo 50 saliida waxaan ku wareejinaynaa dhakhtarka guud ee gobolka Togdheer magaalada Burco agaasimaha taliyaha qaybta iyo barnaamijka ku wareejinaynaa waxa soo bixiyay dad muxseen oo Imaaraatiina soo bixiyay waxay u baxsanayaan liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala saasan ku wareejinay way naga aqbaleen qoydan ku wareejinay aad iyo aad bay mahadsan yihiin. taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer gaashaan la dhexe Cali Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibrahim Nafaqo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u duceeyay muxsinka soo bixsaday deeqdan raashinka waxaana sidoo kale agaasimaha cisbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim ku ammaaneen waxqabadka ballaaran ee uu ka hirgeliyay muddadii agaasimaha ka ahaa cisbitaalka magaalada Burco. ninka muxsinka soo dhiibayna khayr baan ilaahay u rajaynaynaa ilma Salebaan Yaasiin waxaan leenahay khayr baad gudateene ilaahay miisaanka xasanaadka haydin ku daro waxaan soo dhaweynayaa maamulka gobolka iyo maamulka cisbitaalka arintan muxuu ahaa ka soo qayb galay waxaan leeyahay bini'aadanku wixii ay si geystaan aakhir si geystaan ba raaciye ifka waxa yaala raaci maayo marka waxaan leeyahay dadka dhibaataysan ee halkan ku xidhan muxuu caafimaadka xagga caafimaadka jiifa bukaan jiifka wax weyn bay u taraysaa ismaha guud ee cisbitaalka guud ee Burco si gaar ah u amaanaya sababtoo ah wax qabad wanaagsan buu ka muujiyay intuu halkan joogay waxaan leeyahay ilaahay ha kugu gargaaro Allah kugu asturaan leeyahay. marka koowaad waxaan leenahay muxsinka soo bixiyay jazaakumullahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro meeshii uu ka soo saarayna ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo sidoo kale waxaan iyagana aan u ducaynayaa ilma Xaaji Salebaan Xaaji Yaasiin oo iyaguna wakiilka ah runtii gartay muxsinka inay ka soo qaadaan oo meeshii ugu haboonayd oo ah cisbitaalka ay jiifaan dadka xanuunsanaya qaybta dhimirka iyo qaybta kale ee caafimaadka guud iyagana aad iyo aad baan ugu ducaynayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay baa haydin barakeeyo qiimaha badan ka geystay runtii gartay in dadka bukaanka ah ee walaalihiisa ee muslimiinta ah inuu caawimo waxay ku raashinkan iminka sida agaasimu noo sheegay muddo 3 bilood ayuu ku filan yahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa muxsiniinta kalena sidaas oo kale inay ku dayasho ay sameeyaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha guud ee cisbitaalka runtii isaguna qiimo weyn iyo maxay tahay qadarinba leh oo wax qabad badan sameeyay aad iyo aad baan u mahadsantihiin waan u kala wareegnay raashinka. Khaliil Barrawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.